بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنتو تاريخ تستحيل لاتنك بيشة الدواد سافر لاتن بيش أفر لاتن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنتو تاريخ تافر لاتنك بيشة الدواد لو كنشاني لاتن waxaanu soo gaarsiinay raashin qaybintii aan ka wadnay gobolka Maroodi Jeex degmada Salaxley gaar ahaan tuulada Arweelo tuulada waxaan soo gaarsiinay 116 qoys oo ku wareejin gudoomiye Cabdi Dheeg runtii degmada waxaan ku aragnay in ka jirta xaalad abaareed oo daran oo ay kala mid tahay abaarta guud ee dalka ka jirta iyo abaarta gaar ahaan ka jirta gobolka Maroodi Jeex deeqdan waxa soo bixisay hay'adda Sacuudi Carabiya King Salman oo runtii wada shaqeyn dhow la leh hay'adda diyaargarowga afooyinka ee keedka raashinka qaranka waxaan markii koowaad u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo runtii ballanqaadkiisa ahaa in dadkeena abaaruhu saameeyeen dadkeena dayartaaba la garab istaago ballanqaadkaas oo hay'addan ay tahay hay'adda waajibkeedu tahay in fuliso waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinka mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Dixood iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdiraxmaan Xamdulle oo runtii nagu hogaaminaya in dadkeena jilicsan xilli walba laga war doono wixii la hayana lagula garab istaago sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Cabdi iyo deegaanka tuulada Arweelo si wanaagsan oo la shaqeeyay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa maayirka degmada Salaxley iyo xogeyaha iyo agaasimaha arrimaha bulshada runtii hawshan qayb baaxad la ka qaatay sida ay soo gaari lahayd qorsheynteedii iyo qaadisteedii iyo hawlgal farabadan la sameeyay guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa deegaanka Arweelo si wanaagsan oo soo dhaweeyay deeqdaana si wanaagsan u gudoomay waxaan rajeynayaa in aanay tan noqon tii u dambeysay in soo gaarsiino in deegaanka hadda kadib si joogto ah wada shaqeyn doono waxaan kaloo u mahadnaqayaa warbaahinta hay'adda Narford oo dadaal weyn ugu jirta sida ay soo gudbin lahayd shaqada baaxadda leh hay'adda diyaargarowga afooyinka raashinka qaranku ay ka wado guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka Maroodi Jeexba aad baan u mahadsantihiin gudoomiyahana waxaan ku wareejin doonaa 116 qoys oo degmada tuulada Arweelo waana mahadsantihiin waxa saaka tahay bisha 24 bisha 7 2025 waxaanu la wareegnay 116 qoys raashinkood ciddii ka qayb qaadatay iyo ciddii noo keentay oo koow ka tahay hay'adda barakacayaasha hay'adda diyaargarowga barakacayaasha iyo kaydka raashinka way ku mahadsan yihiin wadanka waxa ka jira abaaro xilli loo baahnaaday timi oo dadku u baahan yahay iyagoo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku mahadsan yahay oo abaarihii ka soo jawaabay durba waxaanu leenahay dawaa xilli noo baarallahu fiikum waana mahadsantihiin waxaan kala wareegnay raashinka hay'adii dadkina waa kuwa ku fadhiya alxamdulillaah rabbil caalamiin marka ugu horeysa magacaygu waa Cali Shido Warsame waxa weeye meeshan la keenay raashinka waa Arweelo Soomaaliland marwan carabta ee mahadnaqan mahadle soo gaarsiinay raashin qaybinta gobolka Maroodi Jeex degmada Salaxley gaar ahaan tuulada Reebedka runtii tuulada waxaan ku wareejinay 180 qoys oo naga la wareegay gudoomiyaha tuulada hay'addan aafada wasiibooyinka ka hortagga ee deeqda noo keentay deeqdaasi waanu ka gudoonnay ilaahay baa mahadle waana ugu mahadinaynaa waxaanu leenahay isbeddelka keenay aynu samaynay haddii reer Soomaaliland sababtoo xukuumaddii horeba kama naarki jirin xukuumaddan madaxweynaha Soomaaliland ugu horeeyo waanu ugu mahadnaqaynaa iyo ciddii kale ee waday ee ka soo shaqaysayba waxaanu leenahay waa dadkiinii haddii ay ogaateen baahida ka jirta halkan oo idin soo gaadhay cabashadoodu idinkuna ilaahay baa mahadle waxa kaloo u mahadnaqaynaa hay'addan soo gaartay raashinkan deeqda waanu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadle waa mahadsantiin maadaama odayaashii iga horeeyay hadee dhameeyay laakiin tii kuwa tumanayo aad u baan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay maadaama ogaateen baahida dalka ka jirta ee dadkiina soo xusteen waa mahadsantiin xilligaas oo xilli casr
cadceeddu soo dhacaysa degmada Balmataan waanu soo gaarsiinay raashin qaybintii wejigii afraad ee ka wadnay gobolka Maroodijeex iyo guud ahaan gobolada Jamhuuriyadda Somaliland raashinkan oo dhan 150 qoys ayaa waxa soo bixisay hay'adda King Salman Sacuudi Carabiga waxaan u mahadnaqaynaa hay'addaas oo muddo dheer garab taagnay dadkeena jilicsan ee abaaruhu saameeyeen oo wada shaqayn aad u dheer la leh hay'adda diyaargarowga afooyinkeedka raashinka qaranka gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Professor Axmed Maxamed Cadaad oo isaguna runtii kaalin weyn ku lahaa sidii deeqdan u soo gaari lahayd degmooyinka gobolka Maroodijeex oo dadaal badan iyo waqti badan ku bixiyeen dadka gobolka Maroodijeex ay deeqdan helaan ugu dambeyn waxaan mahad celinayaa gudoomiyaha degmada Balmataan iyo xogayaha degmada Balmataan oo runtii iyaguna si weyn noola shaqeeyay dadkii ku habboonaa ee deeqdan u baahnaana soo qoray oo maanta aan markhaati ka nahay in dadkaasi ay gudoomeen ayna la wareegeen runtii xogayaha iyo gudoomiyuhuba waa rag runtii degmada wax kastoo ay u baahan tahay meel kasta ka soo heli karaan u gala waqti badanna ku bixiya sidii degmada iyo dadka maamulaan xilliyada abaaraha waxay heli karaan soo gaarsiin lahaayeen oon qoraal naga deynin iyo taleefan runtii hawshaas intii socotayna dadaal weyn geliyay degmada Balmataan maaha markii koowaad in raashin keeno laakiin waqti kastoo gobolka wax ka qaybinayno ama xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ay dadkeega wax u qaybinayso waxay ka yihiin degmooyinka mar walba ku jira yaanu nimaadno inkastoo qirayna deeqdan inay tahay mid kooban oo aan ku filnayn dadka degmada Balmataan ku nool waxaan rajaynayaa deeqdan inaan soo kordhino oo ayna noqonin deeqdii u dambeysay keeno wanad mahadsantiin dhammaantiin si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa warbaahinta hay'adda Narford runtii qayb weyn ka qaadatay sidii shaqada baaxadda leh hay'adooda ay bulshada u gaari lahayd wacyigoogana kor loo qaadi lahaa aad baan u mahadsantiin aad iyo aad waxaan uga mahadnaqanaa hay'adda diyaargarowga iyo aafooyinka iyo kaydka raashinka ee Jamhuuriyadda Somaliland aad baan uga mahadnaqaa iyo Salman boqorka Sacuudiga aad iyo aad baan uga mahadnaqanaa waxaana soo gaaray degmada Balmataan anoo ah xogayaha degmada Balmataan waxaana soo gaaray 150 qoys 150 qoysna waa maanta waa kaana loo rogayo aniga xogayaha degmada waxaan ka gudoomay 150 qoys waa markii labaadna maaha markii saddexaadna maaha waa wada way nagu soo noqday way naga warhayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa